madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa maanta markii ugu horeysay ka degay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan tan iyo markii loo doortay hoggaanka sare ee maamulkaasi. Cali Guudlaawe oo ka hadlay munaasabad lagu soo dhaweeyay ayaa ballan qaaday in uu xalin doono tabashada ka taagan gobolka isla markaana uu cadaalad fali doono reer Hirshabelle. Allah ayaa mahad iska leh maanta haddii aan magaalada Beledweyne aan ku wada sugannahay waxa uu mahad celinayaa halkaan cid kasta oo gacan ka geysatay inay sida wanaagga ah u dhacdo annaga oo nabad qabno wax dhibaato ahna dhicin iskugu imaanay ayuu yiri ugu horeyntii isaga oo si gaar ah ugu mahad celiyay duubabka dhaqanka iyo ciidanka amniga iyo madaxda Hirshabelle. Guudlaawe ayaa sheegay in uu diyaar u yahay tabasho kasta oo jirto cid kasta oo wax tabanaysa uu la fariisan doono uu ka garbin doono xilli ay muddo xiisadii ka taagan tahay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. بعد السلام الله يا ماذا سكله الحمد لله يا الله هاي كنت وإلهي مهندس هذا ما أنت مقالة Beledweyne أنا قلنا ماذا أبي أنا أتعلم حلقة قالنا يسنجرين أو هو رسولنا هاي إلهي يا الله مهندسين وأنا بعرف أن الله مهندسين عد كاستئك عنك جيستي إن السنة وناجا ay u dhacdo oo anagu nabada haba yaraatee wax dhibaataan ay la dhicin aan isu imaado cid kaste alla ka sugo cid kaste gacan ka geysata waxaan leenahay waa baadsantihiin hadday tahay duubabka hadday tahay odayaasha dhaqanka hadday tahay bulshooyinka gobolka Hiiraan hadday tahay dowladda Hirshabelle mas-uuliyiinta halkaan uga sugnaada ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenka saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee amniga ka shaqeeyay runtii cid kasta ee gacan ka geysatay inaan si nabada isu hornimaado waxaan leeyahay waa mahadsan tahay wanaaggaas iyo dadaalkaasna ilaahay ka abaalmariyo runtii aad ayaan ugu faraxsanahay sida diiran ee aniga iyo wafdiga la socda aad ugu soo dhaweyseen magaalada Beledweyne qalbi quraanta iyo wanaagga oo ugu soo dhaweysay waa ka mahad celinayaa waan ognahay dalka Soomaaliya meelaha ugu ilbaxsan ay ka mid tahay oo gobolka Hiiraan ka mid yahay waa dadkii mas'uuliyiinta dalkan xalal kala duwan ka soo qabtay gobolada ka soo jeedeen waa wadad xalaaliyiina runtii waan ogahay inay maalin dhacayso sidaan oo kale inoo dhibaata dhicin idinkoo faraxsan anagoo faraxsan inaan isu imaahayno waddanka waxaan halkaasaan ugu dhibrihaynay oon dadkayna ugu dhibrinaynay waxay ahayd maalin inay sidaan dhacaysaan ogeyn hal qof ee ummadda Hirshabelle inay wax naga gaaraan ama naga dhimato ama naga dhaawacantaan ma rabno وأنا أعلم الصور فليسنه إلا ورمه وداوو بينا تبشك استأجرتنا حلال وهلا جل ذلك وأنا أقول إن كعب اليوم عد كستة واحتمل يسوع إن الله فليسينه تبشنا يقبته هذا يمد يجان تاي هذا يمد قبيل تاي هذا يمد قويس تاي يمد قفيل هذا تاي وكذا عندهم هذه لا ذلك أورانو وأورالونو dadkan dalka ka dhaxeeyo deegaanka ka dhaxeeyo dawladnimada ka dhaxayso wada dhalasha ka dhaxayso ismawtay ee sameyn waayo waa la isku qasban yahay horena waa la soo jiri jiray hadii ilaahay raalli ka noqdo waana la isla jiraa hadii ilaahay yiraahdo mas'uuliyadu waa meerto ninba maalin oo qabaa shalay waa la haayay maanta waa la haayaa birina waa la haynayaa laakiin wada dhalashada iyo dhaqanka iyo dawladnimadu way jiraysaa hadii ay raalli ka noqdo cid kastaba maalinkay joogtaa la rabaa inay ummadda isku hayso si wanaagsan ay isugu hayso oo dadka iyagoo isjecel in la isku hayaa la rabaa waxaan isleeyahay waa guul annagoo nabada
timiday sanadka taga waa isleenahay wax badana idin qabsoomi lahaay haddaan khilaaf iyo wax kala tabasha jirin wax badana idin qabsoomi lahaay oo horumar aan isleenahay laakiin inta dhiman haddaan alla tala saarano tawfiiqna naqano waa huba wax badana loo qabsoomaayo waxaa laga rabaa ummadda Hirshabeelle in taladeeda la mideeyo abaaraa jiro amni darraa jirto runtii waxaa loo baahan yahay tala midaysan iyo tawfiiqa loo baahan yahay ummaddaana waxaa wadana in lagu hago wadada horumarka midnimo iyo tala midaysan in lagu hogaamiyo u baahan tahay waxaan ballan qaada hortiina ka ballan qaada alla hortiisana ka ballan qaada ummadda in cadaalad iyo sinaan aan ku hogaamino haddii la raalli ka noqdo aad iyo aad u mahadsantihiin runtii waan ka mahadcelinaya dadaalkiina iyo soo dhaweyntiina beledweyne waxaa la rabaa haddii la raalli ka noqdo inay doorasho ka dhacdo doorashadaasuna waxaa ku soo kordhi doono magaaladan intaasoo kun qofooda imaan doonto oo erge leh oo murashax leh oo mid u kaambeyn gareehaya leh gogasheediyaa laydinka rabaa soo dhaweynteediyaa laydinka rabaa amnigeedina waa laydinka rabaa haddii la raalli ka noqdo ciidamaduna amniga ma sugi karaan haddayna bulshada qaybeeda kala duwan ayna la shaqayn maamulka kaligiisna waxba qaban kariyo deegaan horumarsan ee nabada haddaad aragta bulshada iyo hoggaankeeda midaysane waxaan rajaynayaa hoggaanka iyo bulshaduba inay dhinac isula jeesan doonaan taladoodana ay miday doonaan haddii la raalli ka noqdo